ما تقول واحد جوجا هذا ستة وجرو إيدا هذا كان إيركي 10 مدة رجو يا رب كجعيه واد كذي ذكر ما صبانيو وين ما يرى الفارس ستة وجرو إيركي هدينا توجه وايو munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayay ardaydii kala duwaneed ee kaalmaha hore ka gashay imtixaanadii kala duwanaa ee sanad dugsiyeedka ayaa lagu abaalmariyay dugsiga dhexe ee degmada Arabsiyo munaasabad bilan oo boqoran isla markaana ay ka soo qayb gashay gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Arabsiyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose ee degmada Arabsiyo gudida waalidiinta ee dugsigaasi waalidiinta dhalay ardayda kala duwan ee dugsiga dhexe ee degmada Arabsiyo ayaa ka qabsoontay barxadda dugsigaasi ee degmada Arabsiyo munaasabadani oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu dhiiri gelinayay ardayda kala duwan ee dugsiga dhexe ee degmada Arabsiyo ayaa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga dhexe ee degmada Arabsiyo Zacad Sheekh Cabdi Geele oo ku dheeraaday ahmiyadda munaasabadan oo kale ay u leedahay ardayda geesta kale maamulaha ayaa fariin u diray waalidiinta kala duwan ee ardayda dhigatay dugsiga dhexe ee degmada Arabsiyo waalideen xafladana isku yeernay hore wada sameeyay jiray waa baraarujin dhirigaardiga la siinayo marka waalidkaagu isku boqo waxa dhigtay 440 arday baa dhigtay 440 arday ayaa dhigtay 440 kamidii waa fasaga sideedaad ardayda fasaga sideedaad waraqan u qaybiyay si waalidkooda u yimaadaan oo daal kuna gaaro yeelano waxa ka xumahay waraqaha qaybiyay ardayda gaarsiin waalidkii bise waalidka ka nagaadagay aga wax ka muuqata waalidku ay horta carruurta kala hay sababtoo ah inta joogtaan waa dumar rag uu yar yahay intii tibad maasantii waxa weeyaan waxa jira laba hoos dhac dugsiga ayaa ka jira laba hoos dhac bidoo tiraahano tira dugsigu 600 ka tumay ha jirtay imika waxa martaa 440 hoos dhac asra ku sii socon doona dilayna ila dugsigu gaar maxay 200 wax ka hooseeya baraftada keenay dugsiga soo ku yimaado hoos dhac aad ba jiro maanta iskuul waxa jooga hada 3 wajiro ayda hada kale irkii 10 muddo reerayo ciyaar buu ka jecel yahay waad keenay ذكر ما صبانيو وين ما يرى الفارس ستة وجرو إيركي هدينا توجه وايو سو حكومة رانيا وهذا واحد قاعد دوريا ده فيسبوك هكذا وراني مركز تقول جوتي فالمهم براروش xafladana aynu isugu nimidnay saacad baa idin sheegay ujeedada ay tahay ma uu idinku yeedhay ama ay leedahay wuxuu idin sheegay inuu 140 kaar qaybiyay xalay to ama shalay uu u dhibay ardayda 140 waalid ma joogaan oo wada arkaynaa taasina waa daliil waalidku leeyahay mala awlaad waa la soo reeyay inuu xal leeyahay inuu haynaga maqnaado halkii marka ilmaha maanta hooyadii soo garab joogsan weydo de waxaanu muujinayaan inaan la leeyahay inuu haynaga tagaan oo cidba aan idan kala hayn anagu mushaar kuma qaadano gudi ahaan awlaad haddana waxaan u huraa waqtiga iyaga wallahi anaga aqalada dib ugu noqonin ayaa markaan subax maalintaan hawl leenahay aanu shaqada dhulka soo dhignaa si aan uga qabanno baylaha iskuulka anaga isxilqaamnay waalid ahaan anigoo ku hadlaya afka waalidka dugsiga ka shaqeeya ee dhexe marka waxa weeyaan waalidow intiina maanta timid inaad inta maqan aad wargelisaan sababtoo ah sariimada markaynu warka geyno idaacada weynaynu warka ka helaa waa sariimada laba dumar haday qaadanayaan waalidka lagama soo qayb galin inay soo xilqaaman baa laga yaabaa awlaadeena inaynu ilaalino waqtigeenu ku jirno waynu ognahay moobila walaalina waalay imikana waxa ba jira moobilkii ka soo xanuunaba jiraba caruurta in la ilaaliyo mar walba la ag joogo dugsiga dhexe Arabsiyo waxay ugu dambeysay xilligan ka baxay dugsiga dhexe Arabsiyo 79 ama 80 waalidka sharafta leh waliba dumarka xaqiiqda marka loo hadlo hadda waa kay gudoomiye sheegay maamulaha iskuulku arday farabadan baa sanadkii standardka qalin jabinaysay warqadaha loo diray waalidkii ina aabaha iyo hooyaduba iyagoo wada socda ay yimaadaan baa hadii aanay duruuf kala reebin ama qof inuu ka yimaado tiradii meesha inay joogto tiradii inay meesha joogto ay ku wanaagsanado ku wacneed hadii aanay suurto gelina taa macnaheedu ma aha inay waalidku ubadkooda naceen waa duruufo ay makra joognaa iskugu nimid xafladda siisagootinta ardaydii iskuulkan ka baxday fasalkii 8aad ee dugsiyada sare gashay iyo ardayda dhigata kaalmihii ay u kala gudbeen dhammaantiinba hambaliyo baan leenahay ardayda hambaliyo inta dabadeed waalidiinta de horaba waa la idin sheegay awalba dumar u baa iman jiro dumarkiina waaba sii yaraadeen waxaan leenahay
dadaalka sidii aad walba u wadeen ee hooyadu ag taagnayd ilmaha uun libilaaba hawlo badan baa imiga iska jira qodob kalena waan idin leeyahay had iyo jeer imiga waxaad moodaa inay waalidka laftiisu yar dawakheer oo ardaydiisa aan loo wareejinayo Soomaalidu waxay tiraa geel dhaafay geeda la'aande arday waxaad arkaysaa imiga 4 iskuul marayo magaalada jooga ilmuhu markuu yar yahay aqalkooda sidoo ku yahay dad aqal kala geyso uu qalooda waxbarashada iskuulka kaga dartaan ku doonaba ahaadee inaad u daysaan baan idin farayaa iskuulka ilmahaas ku dhamaysto laakiin hadaad kolba meel geysaan jaawareer baa ku dhaca dunida waxaas waa ka madnuuc qaal iyo islaamba oo waxa weeyaan ilmaha yari arday buu la qabsaday macallin buu la qabsaday marka waxbarashadiisii baa isir bedelaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii 10aad 2022 goobtan joognaa dugsiga dhexe waxaynu halkan u nimi inaynu dhiiri gelino ardayda dugsiga dhexe Arabsiyo oo sanad dugsiyeedkii 2022 halkan ay goobtan ku siinayna jaayisad maamuluhu wuxuu noo sheegay oo inuu canaantay in waalidiinta loo gudbiyo waraaqo taasi oo aan waalidkii ka soo jawaabin taasi markaa waxa weeyaan waalidku waa inay ardayda ka warhayaan macallimiintu dadaal bay sameeyaan 7 saacadood 8 saacadood ay halkan joogaan xiisaskooda way soo siiyaan mas'uuliyaddu iyada saaran tahay marka si ay yimaadaan guriga waalidka saaran tahay waxaana inagu soo kartay teknoolajiyadan aad looga cabaaday baalkan mobilka leeyahay oo ah macallin labaad oo guriga dhexdiisa jooga kaasi ardayda waa in laga ilaaliyo oo laga warhayo halkan imika waxaa fadhiyo waalidiin dumaroona raggii war horena xaflad kalena waan ka sheegay bal waxaan oranaa ragga bal maalinta xafladaha uu dumarka guriyooga joogaan kaalay dugsiyada waalidku wuxuu ka baqaa ardaydu waxa ka baqdaa aabaha marka aabuhu waa inuu ka warhayo caruurtiisa waxbarashadiisa iskuulka uu yimaado ardaygiisu akhlaaqdiisa iyo halka heerku marayo inuu la socdo marka waalidka iyo haday isku xidhmaan maamulka iyo macallimiintu ardaygaas wuxuu noqonayaa arday akhlaaq leh Musa Xuseen Xasan Artiyan degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley